magaca ummadda aan mas'uul kaga nahay ee gobolada galbeedka Soomaaliyeed anigoo aan ku hadlaya magaca Awdal State magaca gudoomiyaha guddiga badbaadada Awdal State aniga aadan barxadle Ibrahim waxaan hambaliyaynayaa guusha u timiday maanta oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan waxaan ku hambaliyaynayaa doorashada hanaanka habsamida ah ee u soo baxay maanta waxaan aad ugu sii hambaliyaynayaa madaxweynaha cusub ee la doortay ee sida xaq loo doortay maanta oo aan ku jirin si mubdi ah taas oo ku timiday dadaalka ay sameeyeen mas'uuliyiinta la doortay ee ay doorteen odayaasha dhaqameedka Soomaaliyeed ee ah hay'adda sharci dejinta Soomaaliyeed oo maanta hoggaanka u qabtay gudoomiyaha cusub baarlamaanka ama afhayeenka golaha baarlamaanka ninkaasi oo aan nin lagu kalsoonaan karo nin aan aqaano waliba inuu yahay nin xaqa ku eedaama maxaa yeelay waxaan ku soo gaaray isagoo ka shaqeeya dawladdii u dambaysay ee Soomaaliyeed ahaana agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada aan loola tegi kari jirin wax aan jirin ama wax mugdi ku jiro ama wax sharci ahayn loola tegi jirin waxaan aad ugu hambaliyaynayaa sida uu degay dalkii ee wanaagsan iyo hoggaanada cusub waxa kale hambaliyaynayaa waxa kale aad ugu boorinayaa ama aan ka sugaynaa madaxweynaha inuu magacaabo ra'iisul wasaare oo qalma oo ummadda ka bixiya mugdigan ay ku jirto kana saara dhibaatada maanta taagan ee 22 jirsatay madaxweynaha ra'iisul wasaarahaasi inuu noqdo nin oo qalma oo aan ahayn reer hebel baa ugu turweyn ama reer hebel ku baraaligeli ama reer hebel ku magaciisi waxaan leenahay madaxweyne waanu ku barbar taaganahay waxaad noo doorataa aqoonyahan Soomaaliyeed ka ugu aqoonta badan leh ee ummadda adduunka oo dhani ay taqaano ee wax u qaban kara wax u soo rudi kara ummadda Soomaaliyeed dib u dhis u samayn kara dalkii adduunyaduna u soo joogsan karto waxaan maleynayaa waa tilmaamayaa ninka aan sheegaya baan maleynayaa madaxweyne haddii aad doonayso dalku inuu dego adigoo ku raali gelin qabiil adigoo ku raali gelin qolo adoon ku raali gelin forbo adoo wada ku saaraynaya 4.5 kiya lagu soo shirkii artaad waxaan aad iyo aad mar labaad ku hambaliyaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan guusha u timiday ee ay gaareen intii guusha keentay iyo inta ka taagan dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxa kale hambaliyaynayaa dhammaan golaha baarlamaanka guddiga doorashada guddiyada kala duwan ee baarlamaanka iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaanba waxa leeyahay guul iyo gobonimo iyo maanta inoo timiday waa in la isbarbar taagaa hoggaanada cusub ee maanta soo baxay haddii ay Soomaali maanta ay hoggaanka cusub iyo sharci dejinta cusub iyo ay isla helaan aqoonyahan ra'iisul wasaare u noqda oo soo xulo isaguna wasiir aqoon iyo xirfad iyo magaskarti iyo hufnaan iyo deganaansho iyo
kale inuu soo xulaysawna oon isqabqabsi lahayn taa darteed ayaan aad iyo aad ugu hambalyeelayaa maanta isbuushaa u timid ummadda Soomaaliyeed waanad mahadsantihiin wabilaahi tawfiiq